maalmihii u dambeeyay gobolka Raas Caseer waxa ka jira dhaqaaqyo ciidan oo ay sababtay loolanka labada wasaaradood ee maaliyadda iyo kalluumaysiga. Dadka laba qof oo u dhashay dalka Iiraan ayaa la geeyay magaalada Boosaaso sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. kadib iskasaasin dhex martay ciidamada ay wasaaradda maaliyadda digtay iyo ilaalada doonta oo Soomaali ahaa. mid ka mid ah muwaadiniinta Iiraaniyiinta ayaa u geeriyooday dhaawac soo gaaray halka midka kalena uu isla goobta ku dhintay. dhacdadan ayaa dhacday gelinkii dambe ee Isniinta. ciidamada dowladda Puntland ayaa xabsiga u taxaabay laba qof oo Soomaali ah oo la sheegay inay doonta ilaalinayeen halka meedadka labada Iiraaniyiinta la geeyay cisbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. sidoo kale waxaa la leeyahay laba sarkaal iyo askari ka tirsan ciidanka booliiska Puntland ee gobolka Raas Caseer. ciidankan ayaa waday dooni lagu ganaaxay degmada Baargaal kuna wajahnayd magaalada Caluula. ila wareedyo ayaa sheegaya in doonta ay gashay dalka Yemen ciidankana la afduubtay. ilaa hadda maamulka Puntland kama uusan hadlin dhacdooyinkan isbiirsaday ee ka taagan gobolka Raas Caseer.